waxaa inagu soo dhow foodana inagu soo haysa bishii barakaysnayd ee Ramadaan. Allana tabaaraka wa tacaala waxaa ka mid ah nicmooyinkiisa iyo galladihiisa aan la koobi karin inuu u sameeyay adoomadiisa waqtiyo ay cibaadada iyo taacada ku tartamaan, asagoo adoonka laga rabo xilli walba iyo bil kasta iyo sanad walba iyo xilli walba inuu Ilaahay caabudo, ayaa haddana waxaa laynoo sameeyay waqtiyo gooni ah oo loogu talagalay inaan gallo tartan ziyaada ah laga faa'iideysto. bishii barakaysnayd ee Ramadaan baa ka mid oo inagu soo aadan, waa xilli Rabbi tabaaraka wa tacaala uu dhexdiisa dhigay baraka iyo khayraad fara badan. waa xilli Rabbi tabaaraka wa tacaala ummadda Nabi Muhammad salawaatu rabbi wa salaamu alayhi hiba loo siiyey, hiba qaali ah oo Ilaahay Nabi Muhammad ummadiisa uu siiyey way salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. sidaas daraadeed waqtiga qiimaha badan ee inagu soo socda ee muddada kooban ay ka laaban tahay inaad ku baraarugto way una diyaar garowdo saad uga faa'iideysan lahayd. shayga ugu muhiimsan ee maanta ku hor yaalana ka isaga wax naftaada ma ah, ganacsigaagana ma ah, xoolahaagana ma ah. shayga ugu muhiimsan ee maanta miiska ku saarani waa Ramadaan seed uga faa'iideysataa wax. dhowr qodob aan tilmaanno oo loo baahan yahay intayna bishu soo galin inaynu meel saarno. qodobka koobaad iyo tilaabada koobaad waxay tahay inaynu ogaanno qiimaha iyo qadarka ay leedahay bishani leedahay. jaaniskani intuu leeyahay iyo qiimaha iyo qadarka uu leeyahay inaga mudan yahay inaynu ogaanno waa laga maarmaan. laana kolba shaygu sida uu kugu qiimaysan yahay ayaa dadaalka aad ku bixinaysaa uu noqdaa. waxay nagaga filan qodobka isaga nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi malakul jibriil baa u yimid, markaasuu wuxuu ku yidhi ha fogaado oo naxariista Ilaahay ha ka durko, ha laga durkiyo ruux Ramadaan u soo galay oo Ramadaan dhamaado korkiisa ku dhamaaday asagoon loo dambi dhaafin. wax loogu dambi dhaafo muusa la imaanin. soonkii bisha, salaadihii, sadaqadii, cumradii, quraan akhriskii, cibaadaadkii dambi dhaafka laga helayay kamuusan faa'iideysanin. meelahaasuu taagtaagnaayo waqtigiisa ku lumiyey, jaaniskii baa dhaafay. ilaahay agtiisa muxuu ku leeyahay? waa dayro way kaas. ilaahay waa dayri, waa nin la fogeeyey. sababtuna maxay tahay? rabbi tabaaraka wa tacaala hadduu nicmo ku guddoonsiiyo ku siiyo ood nicmadiisa ka shukrin weydo oo siday tahay aad u guddoomi weydo, natiijadu waxa weeyaan wala in kafartum inna cadaabii la shadiid. in markaas lagu ciqaabo lagu fogeeyo waa. sidaas daraaddeed qodobka koobaad inaynu ogaanno bishan inaysan bilihii kale la mid ahayn, waqtigeedana uusan ilala noqonin sida sanadka intiisa kaloo kale way ka duwantahay, wayna ka socanta. waa qodob iyo tilaabo muhiima wey. qodobka labaadii waxa weeye ee mudan inaynu baraarujinno in muddada gaaban ee bisha inooga laaban aad ku ducaysato inuu Ilaahay ku gaadhsiiyo oo caafimaad kugu gaadhsiiyo, nabadgelyo kugu gaadhsiiyo. sidaasi waxaa ahaan jiray akhyaartii iyo salafkii inaga horreeyey ridwaanullaahi calayhim. 6 bilood oo Ramadaan ka horraysa ayay Ilaahay weydiisan jireen ilaahu Ramadaanna gaadhsii. waa jaanis weyn. inaad gaadhi doontana ma hubtid. saacadaa ka laaban, waqti kooban baa ka laaban, laakiin damaanad ma haysataa inaad gaadhi doonto maya. imisa walaalaheen ahaa oo Ramadaankii hore inala soomo, inala salaado, inala cibaadaystay oo jaaniskan mar labaad aan la siinin. adigana waxaa dhici karta inaadan gaadhin. haddaad gaadhana waxaa dhici karta ka ku xiga inaadan gaadhin. sidaas daraaddeed waa in aad ilaaha weydiisato inuu ku gaadhsiiyo bishan adoo nabad qaba, ammaanna ku siiyo. qodobka saddexaadii wuxuu yahay bishu markay dhalato nabigeenna waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh inaad ducaysato iyadana
oo wuxuu ku ducaysan jiray nabigeenu sallallahu alayhi wasallam ducadan sheegnay Allahu akbar Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman ilahu bisha noogu dhali iimaan iyo amaan nabadgeliye iyo islaam tawfiiq aadna waafajiso waxaad jecesheed raalli ka tahay markaasuu wuxuu dhihi jiray bilay rabbiga iyo rabbigay waa Allah tabaaraka wa tacaala ducadaasi qiimaha ay leedahay waxa weeye bishan bilatay kugu soo aaday in khayrkeeda lagu waafajiyo ilaahay ku waafajiyo kuna tuso inaad samaysana ku fududeeyo ayay ducadu ku saabsantahay qodobka xigay wuxuu yahay bishii baad soo gaadhay way noo bilatay nabad iyo nabadgeliyaad ku soo gaadhay caafimaad baad haysataa ilaahay tabaaraka wa tacaala inaad nicmada uga shukrido ramadaan inaad soo gaadhay adigoo nabad qaba maxay shukriga nicmada rabbi aad garatay ee aad ka shukriday wuxuu keenayaa in siyaada lagu siiyo la in shakartum la azidannakum wa lagu kordhin nicmadii baad garatay waa nicmad diineed waad ka mahad celiso ilaahay baad u aqoonsatay Allah tabaaraka wa tacaala nicmooyin kale oo diineed buu kuugu darayaa kuugu siyaadinaya sidaasi waa quraanka kariimka sidoo noo tilmaamay oo nicmo markaad ka shukrido tu kale jiidanaysaa oo wadataa markaad taa ka shukridana kuwa kale wadataa oo jiidanaysaa waxa kada nicamku waa iswataan macaasida iyo dunuubta iyo kufraankuna waa iswataan marka shukri ilaahay nicmadiisa ka shukriyo qalbigaaga ku weynaato qodobka xigay wuxuu yahay ee baraarujinta mudan bishii inoo soo socoto bishu markay dhalato iyo dhalashadeeda iyo soo dhaweynteeda waa inaan ku faraxno waa inaan bishaaraysano waa marti aan aad u jeceshahay waalidka oo waqti dheer ka maqnaa xaaskaadiyo waqti dheer aydaan is arkin kulanka kuugu hormaysaad kulmaysaan soo aad uma faraxsanid la shaka fi dhalik tabtahij sidaas daraadeed waxa ka qiimo badan waxa soo dhan bishan oo nabad kuugu soo gashay marti qiimo badan way oo ku timid waa inaad marti soor fiican marti soorto soo dhawayso kuna faraxdo imaanshaheeda nabigeena salawaatu rabbi wa salaam alayhi markay bishu soo galayso saxaabadiisu u bishaareen jiray wuxuu dhihi jiray bishii ramadaan baa idin timid oo soo gashay waa bil baraka iyo khayr badan khayrkeeda iyo barakadeeda la badiyay Allah tabaaraka wa tacaala soonkeeda ayuu waajib idin kaga dhigay iridihii jannada ayaa la furay iridihii jaxiima iyo naartana waa la xidhay shayaadiinta kuwoodii khayrka darnaa ee madaxa adkaa ee sharka ku mudxay ayagana waa la xidhxidhay waa la katiinaday habeen baa ku jira bishaas ka khayr badan kumbilood ruuxii khayrka habeenka laga qadiyana isaga ayaa xaqiiqo wuxuu yahay ruuxa qaday oo wanaag oo dhan ka qaday nabigeenu waa u bishaareen jiray marka saxaabada war wax weyn baa yimid war ka gacan fadhiga war baraaruga marka inaad bishaaraysato ood ku farxdo allana quraanka kariimka wuxuu inoogu sheegay iimaanka islaamnimada quraanka ku farxa wa fadli alle qul bi fadli illahi wa bi rahmatihi wa khair akhiri adunba wa allah naxariistiisa iyo fadligiisa faliyafrahu ha ku farxaan huwa khayrun mimma yajma'una asaga ka khayr badan waxanay ururinayaan ee adduunyada ah kuraasta aad haysato milkiga iyo boqortooyada xoolaha jeebkaaga iyo akoonkaaga ku jira naftaada lafteeda caruurtaada iyo guryahaaga kulli waxa kaaga qiimo badan hal amalo aad janno ku hesho ama ilaahay cadaabkiisa ka badbaadiyo huwa khayrun mimma yajma'un taasi waxay cagsi ku tahay in badan oo muslimiinta kamida walil asaf khaasatan dadka caadaystay adduunyada iyo maladaadkeeda iyo shahawaadkeeda ilaahay hana asture bishii ramadaan baa soo dhow marka la yiraahdaba waa naxaya waa murgaya xiriiri buu dareemaya war miyayna kugu filayn 12 bilood baad cunaysi oo aad cabaysi oo aad raaxaysanaysi oo saad doonta samaynaysi ayaduna waa ayaam waa maalmo kooban oo tirsan way war maxaad ka nixiyo ku haysta waa caafimaadka jirkaaga
waa aakhiradaadii iyo jannadaadii iyo daartaadii aakhirood dhisanayso waa faa'iidooyin bulshada u soo noqonaya ayadoo dhan waa fawaa'id aakhiriya adduunyo waaye maxaad ka nixi marka inaad ku faraxdo waa inaan bisha ku faraxna imaanshaheeda inaan ka naxno maaha qodobka xigaayo wuxuu yahay loo baahaya inaan ku baraarugno bishan waa inaad qorshayso oo aad nadaamsato dejisato qaabkaad uga faa'iidaysan lahayd bini aadamku kama soo hadho takhtiidka iyo qorshaha iyo nadaaminta kama soo hadho habeenada iyo maalinta bishu ka kooban tahay saad uga faa'iidaysan lahayd qorshaheeda deji kadibna yuusan jaanisku si fudud kugu dhaafin waxay kugu kaalmaynaysaa in aad sidaad rabtay wax u hesho bitawfiiq illaahi tabaaraka wa tacaala miaal maalan haddaan tusaale idin siiyo waxaad rabtaa inaad bisha ramadaan aad qur'aanka dhammayso 5 goor waa go'aan soo maaha go'aankaasi waa inaad u dejiso wakhtigiisii maalintii imise goor baad rabtaa inaad fadhiisatood qur-aanka akhrido iyo habeenkii muddo walbana intee juz baad rabtaa inaad akhrido qorshe degan oo isku habaysan oo nidaamkii go'aankaad dejisay waafaqsan ayaa markaa kuu soo baxaya laakiin si fawdo oo hamajiya haddaad bisha isaga gasho barnaamij kale oon qorshahaagaba ku jirin baa ku kaxaysan doonta kadibna bishii waaba dhammaatayba beddelka aynu adduunyadeenna qorshe iyo nidaam u samaysanayna tanaa ka mudan ganacsadada iyo tujaarta waa idinka arkay bilaha suuqu dhaqdhaqaaqayo ee ganacsigu fiican yahay intaan la soo gaadhin bilahabaa qorshe la sii dejinaya qorshihiibaa badeecada lagu keenaya bakhaarada la buuxinaya nin walba wuxuu isleeyahay jaaniskana yuusan si fudud kugu dhaafin waar miyayna ka mudnayn inaynu aakhiradeenna aynu qorshe u dejisanno iyo saynu jaaniskan uga faa'iidaysan lahay wakadalika ninka siyaasiga ee kursiga rabaay markuu go'aansado inuu kursi raadiyo qorshihii buu dejinaya shirar reehebel la shir kooxebel raadi dhaqaalihii isku hagaaji xagga wad yani waxaa ka horreeya qorshayntaa ka horraysa intaan tilaabada qaadin qorshayso qaabkaad bisha uga faa'iidaysan lahay waxay kuu fududaynaysaa hawsha iyada qodobka xigaayo wuxuu yahay go'aan qalbigaaga ah iyo doonitaan dhab ah qalbigaaga ha laga arko allah tus tabaaraka wa tacaala qalbigaagana ha ka arko inay go'aan kaa tahay inaad bishaa faa'iidaysan rabto daaca inaad rabto aakhira inaad rabto inaad ridihiisa raadinayso go'aankaa qalbigaaga ha lagu arko maxaa yeelay allah tabaaraka wa tacaala addoommada wuxuu wax ku siiyaa kolba qadarka go'aankooda iyo niyadooda xadiidkii nebiguna waa kii ahaa innama alacmaalu binniyaat niyadaada iyo qasadkaaga buu alla fiirinaya xadiidkii waa kii ah nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walakin yandur ilaa quluubikum waacmaalikum allah meeshuu kaa fiirinaya waa qalbiga maxaa qalbigaaga ku jira haddaad rabto inaad wakhtiga kaga baxdo laalaab kaga baxdo oo aad wareegaysato ama adduunyadaadaba u badato qalbigaaga hadduu sidaa ku jiro wixii qalbigaaga ku jiray baad ilaahay ka sugi tabaaraka wa tacaala biidni illaahi tabaaraka wa tacala saas daraaddeed go'aan oon shakiya laalaab ku jirin oo saadiqa ilaahay ula imo faidaa cazama almru falow sadaquu allaha lakaana khayran lahu man sadaqa allaha sadaqahu tabaaraka wa tacala ruuxii ilaahay run kula dhaqma ilahay run buu kula dhaqmaa go'aan dhawa marka la imo qodobka xigaayo wuxuu yahay bishii baa soo socota intaynan bishu gelin waxaa la rabaa inaan ku dadaallo sidii aynu u baran lahayn axkaamta bisha ku saabsan u fahmi lahayn see bisha looga faa'iidaystaa soonka iyo axkaamtiisa salaada taraawiixda iyo axkaamteeda sadaqa haddaad baxsanaysa iyo axkaamteeda haddaad cumraysanaysa iyo axkaamteeda qur-aanka akhrintiisa iyo aadaabtiisa waa inaad barato ood haddaba ku dadaasho lianna waxa weeyaan waxa aad samaynaysa hadduusan cilmiyaysnayn waa tacab khasaar ilaahay agtiisana waxba kaga heli maysid cilmiguna wuxuu asaas u yahay caqiidada iyo hadalka iyo ficilka wax kastoo la samaynayo cilmiga asaas u ah faclam annahu laa ilaaha ila allah saas daraaddeed buu alla wuxuu ka dhigay
awwala fariida cala kulli muslimin wa muslima waajibka ugu horeeya ruuxa muslimka rag iyo dumarba saaran waa inuu barto siduu u cibaadaysan lahaa marka haddaad akhrin karto kutubta akhri wixii laga qoray akhri haddaadan akhrin karin oo taalacan karaynin dhegayso wixii laga duubay haddii ay wax kaa qarsoomaan oo masale kugu adkaato ha iska qardajeecine ehelkeedii iyo culimmada weydiiyoo la carar fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun si aad allah u caabudo calaa cilmin wa basiira aqoon iyo garasho si aad ugu caabudo ee aadan jahli ilaahay ugu caabudin in badan oo caamada ka mida walilasaf waa dadaalayaan laakiin marar badan dadaalkoodu meel khaladu ku dhacaya waxagaajiyay isleeyihiin ayagoo ilaahay u dhowaada leh waxa laga yaabaa inay ka fogaadaan leanna wixii maba garanaysidba yaa salli irjic fasalli fa innaka lam tusalli baa ku taalla kac noqo salaada ku laabo tuko wixii horeo tukatay waxba ma ahayn waadu iska foorfoorasatay mooye salaad maada tukanin leanna salaadaadu ma cilmiyaysnayn soonka iyo habeenka istaaggiisana nabigeennu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila aljiicu waalcatash dad badanoo sooman soonkooda ka heli maayaan waxaan oon iyo gaajo ka ahayn waxba ilahay agtiisa uma yaalo way un rafaadeen wa ruba qaa'imin laysa lahu min qiyaamihi ila asahar dad badanoo habeenkii taaganoo taraawiix u taagan oo salaatuleyl u taagan istaaggaa iyo waxay ka helayaan keliya inay soo jeedeen oo daaleen oo rafaadeen laakiin ajir ma laha war maxay ku dhacday waxbaa kaa khaldan ama niyadii iyo ikhlaaskii baa kaa khaldan ama camalkaagaan waafaqsanayn hadyigii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh saas daraaddeed waa lagugu soo diidaya cilmiyeeya cibaadadda qodobkaasi waa qodob weyn qodobka ugu dambeeya ee mudan inaan tilmaanno isagana waxa weeye bisha soo gelitaankeeda ka hor markay soo gasho dhammaadkeeda waxaad ku dadaashaa inaad toobad keento ilaahay u soo laabo wixii dembi aad geli jirteed caadaysatay joojiyo ka go wixii horay kaaga dhacay ka qoomamood oo qalbigaagu ha ka gubto go'aanso inaadan dib dambe ugu noqonaynin ilaahay dartiina u sameeya markaad saa u toobad keento toobad rasmiya aad keento qalbigaaga wixii daxal fuushay mugdigii fuulay wasakhdii fuushay kulli waa la daahirinayaa qalbigii waa dhalaalayaa waa xoogaysanayaa socdaalka uu xagga rabbi ugu jiro ayuu wuxuu u helayaa awood u helayaa daacadii buu ku sabrayaa qur-aanka akhriskiisu ma dhibayo salaada intii la taagnaadaba waa taagnaanaya waa sabraya soonka iyo dhibkiisa waa ku sabraya laana waa qalbi xoog badan oo iftiimaya waay iimaan xoog badan baa ku jira saas daraaddeed baa nabigeennu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh addoonka markuu dunuubta galo qalbigaa wasakhoobo daxal fuusha markuu soo laabto ka soo laabtana qalbigiisa waa la soofeeyaa waa la sifeeyaa waa la daahiriyaa soo ma aragti marka qalbiga daahiri saan soo sheegnayba meesha ilaahay kaala mucaamalonaya waa qalbiga haddaad aragto adoo caajisan cibaadadii kugu adag tahay jiitamayo cag jiidaaya rafaadsanoo cibaadaysan la aafadu xaggee ka socotaa qalbigaagay ka socotaa kan khayrka u hormaray ee khayrkii ka horeeyana arrintu waxay ka socotaa qalbigiisay ka socotaa bacda tawfiiq illahi tabaaraka wa tacala alaa wa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh waidaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalb marka qalbiga hagaaji nadiifi cuqdada ka saar cadhada ka saar xumaanta ka saar shahawaadka jacaylkooda ka saar shubahaadka ka saar qalbiga nadiifi wixii galayna ka toobadkeenoo daahiri si aad bishan si qiimo badan uga faa'iidaysato daacaadkaa rabbiye kala gedisanna aad qaybtaada uga qaadato khitaamka waxa weeyaan iyo gabagabadu waxaad isku daydaa acmaasha bishan taallaayi way fara badan tahay mid walba qayb ku darso mid walba qayb ku darso soonkii waad soomanta salaadiina waad salaadaysaa sadaqada wuxuun ku darso haddaad cumraysan karta gal qur-aanka akhriskiisa ka qayb qaado
salaadii habeenkii ka qayb qaado khayroon afurinta dadka sooman ka qayb qaado meel kaliya ha isku koobine meel walba inay lagu kugu jiri karto isku day waxayna nabigeenna salawaatu rabbi wa salaamu calayh acmaal fara badan oo kala duwan markuu sheegay ruux hal maalina inta isla sameeyay janna loo ballan qaaday buu nabi maxamed yiri salawaatu rabbi wa salaamu calayh marka majaal walba khayrkiisa iyo wanaaga yaala inta ugu badaneed ka qaadan karta ka qaado si ilaahay ku saamaxo tabaaraka wa tacaala qoortaada naar uga xoreeyo jannadiisana kuugu waajibiyo iyo ridihiisa tabaaraka wa tacaala sallu wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه من الخيرات والطاعات ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر هذا الدين واخذل من خذل هذا الدين يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك